munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo dhaqaale loogu aruurinayay iskuulka Maxamuud Axmed Cali ee ku yaala magaalada Hargeysa ayaa lagu qabtay magaalada London. Munaasabadan waxaa soo qaban qaabiyay guddi isku xilqaamay sidii dayactir ballaaran loogu sameyn lahaa iskuulka Maxamuud Axmed Cali ee ku yaala magaalada Hargeysa. Guddigan ayaa fadhigoodu waxa uu yahay waddankan Britain gaar ahaan magaalada London. Waxaana munaasabadan ka soo qayb galay cuqaal waxgarad salaatiin dheergarad dadweynaha aad u fara badan iyo mas'uuliyiin ka socda safaaradda Soomaaliland ee fadhigeedu tahay waddankan Britain. Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii madasha ka hadlay hadaladoodii waxaa ka mid ahaa kolley waa wada ka wada dhagsan tihiin ujeedada caawa halkaan isugu nimi waa fundraising ama in aynu gacan ka geysano iskuulkii Maxamuud Axmed Cali oo runtii dayac badan iyo burbur badaniba uu ka muuqdo. Maxamuud Axmed Cali wuxuu ka mid yahay iskuulada ku yaala magaalada Hargeysa waana iskuul aad u daaweyn magaca uu sitaana waa magac aad u qiimo weyn. xafladda aynu ugu ururinayno dhaqaalaha dugsigeennii Maxamuud Axmed Cali ee ku yaalay magaalada Hargeysa. marka runtii arrintan iskuulka gacanta ugu weyn baan ka geysanaynaa. shaqaalihii 3 baa fadhiya anigu afkooda ku hadlaya waxaan ku yabohaynaa 1,000 jaabka yaga ah. Maxamuud Axmed Cali dhowr magaalo iyo dhowr wadan iyo inta Soomaaliga lagaga hadlo oo dhan xaq buu ugu leeyahay horta in la xuso father of education inay loolana maaha. waxaynu ku qurux badannahay wada jooga quruxdeenu waxay ku jirtaa Soomaalilandnimada ee runtii dadkii qurba joog ahaa iminka ay garteen inay siyaasadii iyo arrimihii kale intay ka leexdaan ay taageeraan runtii waxbarashada. Maxamuud Axmed Cali ma aha wax iskuul iyo lagu tilmaamo uu ka qaalisay iskuuladeennii aynu ka soo wada baxnay inaynu dib u jaleecno. marka wala haddaynu isku dayno qof walba dhinaciisa inuu campaign-ka ka galo dadkeenu kuma xumo sadaqada aynu dadaal badan muujino. waxyaalaha dayacan ee aan runtii priority-ga la siinin waxa ka mid ah iskuulada. waxaan halkan uga mahad celinayaa rag iyo dumar intiina xafladda ka soo qayb gashay. Assalaamu calaykum dhammaantiin waan wada salaamayaa marti sharafta halkan isugu timi naga soo ajiibtay waa mahadsantiin dhammaantiin. runtii anigoo ku hadlaya magaca dallada guud ee SSUK waxa caawa sharaf noo ah inaanu ka soo qayb galno xafladan quruxda badan leh. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa haweenka iyo ragga ka soo qaban qaabiyay runtii maanta waxa weeye aabihii waxbarashada in caawa halkan aynu ku hadal hayno sharaf bay ii tahay. anigoo ku hadlaya afka jaaliyadda Soomaaliland ee bariga London caawa farxad bay ii tahay inaan xafladan sida waxaan loo soo agaasimay ka soo qayb galo. xataa iyagu ma ogo waa maanta dhow ila socdeeno waa surprise horteed iga guddoon. haddaanu table 7 nahay halkan waxaanu kaga dhawaaqaynaa oo aanu ku darsanaynaa $1,000 ayaan ku darsanaynaa haddii ilaahay ka dhigo. annagu mar walba iskuul walba oo loo baahayay inaan wax ka qabanno sida aanu nabibaan mar walba u taaganay. aad iyo aad baan nii salaamaya dhammaan ummadda sharafta leh ee ka soo qayb gashay caawa xafladan faraysinka loogu ururinayo iskuulka Maxamuud Axmed Cali. waan ku faraxsanahay waayo waa iskuul sita magac aad u weyn. waxay albaabka markaan ka soo galay sida loo buuxo ee loo soo camiray ee xafladda looga soo jawaabay aad baan ugu farxay. kadibna waxaan galay kalaaskii aan dhiganayay waxaan arkay kalaaskaas oo aad iyo aad u liita oo godad fara badanna ay ka muuqdeen corridor-ka. waxay markaa igu dhalatay inaanu dhammaan qolooyinkaygii Maxamuud Axmed Cali bal inaanu dib u eegno oo aan isnidhaahno iskuulka maxaad u qaban kartaan. Somaha $2,000 awaalata marka waxaanu idin tusaynaa dadkayga isboortiga dadka oo iska jecelnahay. ka urur ahaan haddaan dib ugu soo noqdo Somaliland Diaspora Sports Development waa intaa uu sheegay barsaab ayaan ku dhawaaqnay insha Allahna waan soo bixinaa soo ugu dhaqsaha badan $2,000 mar labaad haddaan ku celiyo $2,000 baan ku darsanay isaga. ugu
dambeyntiina waxaa in ka badan 15,000 oo dollarka Mareykanka loogu yaboohay sidii dayactir loogu sameyn lahaa iskuulka Maxamuud Axmed Cali ee ku yaala magaalada Hargeysa. sidoo kale waxaa shahaado sharaf lagu guddoonsiiyay guddigii isku xilqaamay in dhaqaalahan loo aruuriyo iskuulkaasi. Cabdi Fataax Cali Shirwac, telefishinka caalamiga Home Cable, magaalada London.